filan miwaadiga dhowrad raad qabo hooyo waa adiga rixinkii gub yahay hooyo waa adiga waxaan jeclahay fanaanka la leeyahay Ismaaciil Arka abdoobnimo naftii way diidatay dib u dhacay waqtiga qof dareenta oo dacwaageeda idadiisa baan doonaya fanaanka la leeyahay Ismaaciil Arka oo saacadii ugu dambeysay baraha bulshada hadalhayn aad u badan ay ka dhalisay iyo xoogagog sir ah si aan kula wadaaga daawade fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo gacanta Allah ku barakeeyo adigoo janaalka subscribe dhahanayo gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like la dhacayo wixii fikraad ka qabtidna qaybta commentiga noo la wadaag fanaanka la leeyahay Ismaaciil Arka oo gabar hore ay xiriir kala dhaxeen jirtay oo Warda Habi la dhahayo oo qoftiisa hore lagu sheegay oo haddana baraha bulshada ay hadalhayn aad u badan ka dhalisay Ismaaciil Arka oo qoftii hore Habi Axmed oo Warda Habi la dhihi jiray oo qoftiisa oo hadda ugu tagay qoftaasi hore ayba ku kala tageen qoftaani hadda cusub Ismaaciil Arka oo madaxeeda ugu tagay Habina uu ku idleeyay gabar cusub oo dalkaasi Mareykanka ka imaaday Ismaaciil Arka oo dad badan oo asxaabta baraha bulshada ay leeyihiin Ismaaciil wuxuu ugu tagay Warda Habi iyo Ismaaciil waxay ku kala tageen qof cusub ayuu Ismaaciil Arka helay iyo baasaboorka Mareykanka gabar wadato oo Soomaaliyeed sidaas darteed ayuuba ugu tagay Warda Habi maadaama khilaaf oo baraha bulshada ayagoo uu soo kala dhexgalay inta kale laakiin la isku arki jiray Warda Habi TikTok-geeda oo badanaa lagu arki jiray Ismaaciil Arka iyo Warda Habi oo isku faraxsan lamaane isku nuurayana ay ahaayeen inkastoo muuqaaladan uu sidaas cadeyn jiray laakiin Ismaaciil Arka oo gabar cusub dalkaasi Mareykanka ka imaaday markuu bartay Warda Habi baba ka tagay maadaama baasaboor Mareykan iyo qof cusub oo dalkaasi Mareykanka ka imaadayba markuu helay sidaasi Warda Habi uu ugu tagay Warda Habi oo la sheegay baraha bulshada in hadalhayn ay ka dhalisay maadaama kala tagooda oo dad badan ay ku sababeeyeen oo Ismaaciil Arka la leeyahay gabadhan hadda dalka Mareykanka ka imaaday oo ku haystaa baasaboor Mareykan ama waji ayuu qalqalsanaya dadna qaar ay sidaas leeyihiin ilaa hadda Ismaaciil Arka oo dhankiisa arintaasi aanan ka hadlin ama arintaasi waxba aanan ka dhihin laakiin badanaa muuqaalada asxaabta iyo dadka baraha bulshada ay isku arki jireen Warda Habi TikTok-geeda oo lagu arki jiray Ismaaciil Arka iyo ayada oo heese isla soo qaadi jiray laakiin bariyii ugu dambeeyay hadda Ismaaciil Arka oo arooskiisa soo shaabaxay gabadhana uu badoontay dalkaasi Mareykanka ka timaaday oo haddana qoftiisaba ay tahay mar dhowna Ismaaciil Arka oo rajeynaya insha Allah dalkaasi Mareykanka inuu ka dago arrimahaas ayaa baraha bulshada saacadii ugu dambeysay hadalhayn aad u badan ay ka dhalisay maadaama fanaanka Ismaaciil Arka lagu sababeeyay ama arintiisa laga dhigay in qoftii hore Warda Habi la dhaayay ay uu ku kala tageen qoftaani cusub darteeda oo asigana qoftaani uu ka raacay dad qaarna ay saas dheen laakiin fanaanka oo ilaa hadda arintaasi aanan ka hadlin ama aanan wax dhankiisana ka dhihin muuqaalada xiga ayaa ku kulmi doonaa sidaas iyo mac salaama